السلام عليكم كلنتي aqoon daawadayaal lahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaatanaad ee taxanaynii ayaan daran sheekadan waxaa qoray Dr. Cabdilaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag qaybtana waxay ku bilaamaysaa sidan ereyadaas cilaamad soo aad bay uga naxday waayo waxay la socotay in xarbi waalidkiis doonayaan in ay iyada iyo xarbi isku daraan waxay arinta asliya Ahmed hadba heer soo martaba iyadoo Faadimo dhexdhexaadinayso ay si fiican isu barteen waxayna ku heshiiyeen in ay wada socdaan kadibna isku sadaan asli wiilkeedii uu koray waxayna geysay xanaanada ilmaha ee hodan goor duhur ah ayaa asli oo qadadii diyaarinaysa ayaa waxay maqashay qaylo dibadda ay u soo baxday waxayna la kulantay wiilkeedii oo caruur yar ku goobteen intay wiilkeedii gacanta soo qabatay oo guriga soo gelisay ayay ku tiri hooyo Maxamed yare maxaad ilmaha isku maagteen hooyo wiciliyo bay igu leeyihiin hooyo danna ha u gelin caydoodu waxba ka dhibimayse mid kale hadii ay ku gardaraystaan ii soo sheeg anaa ka celinayay hooyo hadii aanan wicil ahayn aabahay meeyay ilmaha kale kulli aabayaal ay leeyihiin su'aashaas aanay filayn ee asli wiilkeedu weydiiyay aad bay uga naxday ilmo ayaana indhaheedii ku soo joogsatay intayna dhabanka ka dhunkatay ayay ku tiri hooyo macaan maxaa aabe kala maqan yahay wixii aad doontaba anaa ku siinayay asli su'aashii wiilkeedu weydiiyay waxa ay ku abuurtay murugo hor leh waxay isu arkaysay in ay ku eedeysan tahay oo iyadu mas'uul ka tahay waxyeelada wiilkeeda soo gaaraysa waayo hoyga xanaanada caruurta dariska iyo meel kasta ilmaha jooga wiilkaasli waa caay jireen waxaan cunugeedii ku abuurmay cuqdad weyn ugu dambeyntiina asli waxay wiilkeeda u sheegtay in aabihiis dhintay waxayna ku tiri hooyo hadii ilmuhu ku yiraahdaan aabaha meey waxa ku tiraahdaa waa dhintay asli waa ogeyd in wiilkeeda aabihiis cadaawe uu nool yahay hase yeeshee agteeda wax dhintay oo kale ayuu ka ahaa waayo cadaawe waa inkiray asli iyo uurka yahaydba asli inkasta oo waalidkeed deershay misana akhbaartooda si fiican ayay ula socon jirtay waxayna ka warheshay in hooyadeed Cambaro si ba'an ay sakaraad ugu tahay cisbitaalka Digfeer asli iyadoo wada khudaar qasxadaysan buskud iyo cuntooyin kaleba ay aaday cisbitaalkii waxay doonaysay bal inay hooyadeed xaaladeeda soo aragto hase yeeshee ilinka qaybta daawooyinka ay ka noqotay markii ay ogaatay in qolka uu ku jiro aabaheed Awjaama waayo waxay xasuusnayd dhaartii Awjaama ee ahayd inuu asli hadii ay agtiisa timaado uu labo isleeg u kala goyn doono asli gabadh kalkaaliye ah ayay ugu sii dhiibtay cuntadii ay u waday hooyadeed waxayna u gashay dhakhtarkii qaybta oo u sheegtay in hooyadeed u baahan tahay daawooyin dhawaan magaalada ka dhamaaday oo dibadda laga helo waxay soo qortay magacyadii daawooyinka waxayna warqadii iyo lacagba u dhiibtay saaxiibteed Ruqiya oo ka shaqeysa Somali Airlines waxayna maalin kadib uga soo iibisay daawooyinkii dalka Talyaaniga iyadoo xaalka Cambaro meel khatar ah marayo ay subaxii dambe asli daawooyinkii loo baahnaa u geysay dhakhtarkii qaybta oo isla markiiba ku dhaqaaqay inuu siiyo kuna mudo Cambaro aad bay u roonaatay markay baxaysayna iyada iyo dhakhtar Muuse waxa dhex maray hadalladan Dr. aad baad u mahadsan tahay hadii daawadaas aadan ii keeni lahayn aakhiro ayaan u hooyan lahaa mar hore Cambaro aniga ha igu mahadin ee u mahad celi gabadha asli iyada daawooyinka ku keentay Cambaro aad bay ula yaabtay arrintaas waayo marnaba ma ay filayn in asli oo ay diirshan u soo gurmanayso badbaadada nolosheeda waxay kaloo Cambaro xaqiiqsatay in cuntooyinkii loo keeni jiray badankooda ay asli u keeni jirtay Cambaro intii cisbitaalka ay ku jirtay dhowr jeer ayaa cuntooyin bac weyn ku jira inta la agdhigay lagu yiri gabar ayaa ku soo dhiibtay waxayna Cambaro iskula hadli jirtay oo soo gabadhu mid la arko ma aha cadaawe oo asli cunuga ku inkiray dad badan ayaa u tagay una sheegay in wiilka asli uu isaga aad iyo aad ugu eeg yahay iyagoo ku guubaabinayay in uu wiilkiisa doonto
inkiraadiina dib uga noqdo. maalin sabti ah ayaa Cadaawe tagay xanaanada carruurta Hodan, wuxuuna macallimiintii ka codsaday inay soo tusaan wiilka Asli. markii ay weydiiyeen wuxuu uga baahan yahay, wuxuu u sheegay inuu abti u yahay. cunugii markii loo yeeray oo uu u yimid ayaa macallimadii ka yaabtay sida ay isugu eegyihiin. markaas bay tiri, alla watii la yiri abtiga waa la hidaraaca. weligay laba qof oo sidan isugu eeg ma arag. farqiga idin dhexeeya waa da'da oo qura. markii macallimadii tagtay Cadaawe su'aal boobsiin ah ayuu weydiiyey cunugii, wuxuuna yiri, waryaa aabbahay waa dhintay. Cadaawe ereygaas aad buu ugu madluumay, wuxuuna ogaaday in Asli fikraddaas ku abuurtay. goor ay fiid tahay ayuu u yimid Asli ma mahadin imaatinka Cadaawe, waayo jaahiisa ayay naabayd. waxayna markii ay aragtay soo xusuusatay waxyeeladii uu u geystay, waxaana iyada iyo Cadaawe dhex maray doodan. Asli, ilaahay ma aha cid aan gafin ma jirto. waan qirsanahay dembigayga. maanta waxaan kuugu imid in aan wixii tagay hilmaanno. waan ogolahay wax alla wixii xaal ah ee aad igu xukuntid. waxaan doonayaa inaan wiilka xaalkiisa ka wada hadalno. runtii saaka maraan xanaanada ilmaha tagay waxaan soo ogaaday in aad dadka iyo cunugaba ugu sheekaysay in wiilka aabihiis dhintay. anigiina way kan ma dhiman oo waan noolahay. Cadaawe, nasiib darro, haddii aan ogaan lahaa inaad gurigayga imanayso ma joogeen, waayo araggaagu aad buu naftayda ugu daran yahay. midda kale, maanta lama joogo xilligii aan jilicsanaa ee aan jilbaha ku haystay. waad garanaysaa waxaad fashay. hadalkii intii aanay dhammayn ayuu Cadaawe soo dhex galay oo yidhi, Asli ha soo qodan wixii tagay, raallina ka ahaw oo aynu abbaarno danta. Cadaawe Soomaalidu waxay ku mahmahdaa qowl nin weyn ka dhacay waa qolofkeed ka dhacday. haddii aad u timid maanta inaad tiraahdo Maxamed Yare anaa dhalay nin aan mabda iyo mowqif lahayn, ayaan kugu tirinayaa. waadna ku ceeboobaysaa, waayo cidna kuguma khasbin markii aad dafiraysay. nasiib wanaag, maanta saxeexaagii oo weynaan badan baa la hayaa. Asli, walaalay xanaaqa iska daa. waad og tahay in wiilka anigu aan dhalay. jaalle, waxaan kaa codsanayaa inaad ina kala kaxaysid. cunugana ma aadan dhalin, shaqana kuma lihid. wiilkayga aabihiis waa dhintay. Asli, maxaad igu xanaaqaysaa? laftarkayga dhibaato weyn ayaa soo gaadhay oo gurigaygii dartaa ayuu u dumay. maalinkii maxkamadda aan wada tagi jirnay iyo wixii ka dambeeyey xaaskayga waa tii ilmihii ii tuurtay. midda kale, mujtamacii oo dhan baan meel aan ka galo waayey. qofkii i yaqaanaaba wuxuu yidhaahdaa, maxaad cunugaaga u inkirtay haatan iyo dan? Asliyey, waxaan soo jeedin lahaa inaan isguursanno, wiilkana aan korsanno. waxa la yidhi, nin aan wax ogeyn ilaah waa cadaabin. in aan isguursanno waxaan ka leeyahay haddii qiyaamo intuu dhaco dunida waxa bini aadam ah labadeenna oo qurahi ka soo harno, wallaahi in aanan ku guursadeen. wiilkana aan korsanno waxaan kaa leeyahay wiilkani korriimo kaagama baahna. hooyo iyo aabe iyo wax walbana anaa u ah. Cadaawe aad buu u baryay Asli, dhan kastana waa ka maray. hase yeeshee wax naxariis ah Asli agteeda kama helin. maalmo badan ayaa Cadaawe ku soo noqnoqonayay Asli, isagoo ka rajo qabay in ay mowqifkeeda adag ka soo dabacdo. xataa wuxuu u soo diray saaxiibadeed iyo dad ay ka haybadaysato. ugu dambaystii markii uu quustay, Cadaawe wuxuu u dacwooday maxkamadda sare. Asli markii loo yeeray waxay maxkamadda sare hor dhigtay warqadihii caddaynayay kutubkii Cadaawe maray iyo saxiixii uu ka sameeyey maxkamadda degmada Hodan horteeda oo uu ku inkiray uurka Asli. maxkamaddii Cadaawe ayay daalac u raacday, waxaana lagu amray inuusan waxba ku darsan Asli iyo wiilkeeda. sidaa darteed Cadaawe wiilkiisii oo u jeedo ayuu ka dhaqaaqay. markii uu tagayna iyada iyo garsoorihii waxaa dhex maray hadalladan, Asli, haddii aan la kala roonaan roomado, waxaa la rabay haddii uu gafkiisii qirtay inaad intaad u dulqaadato wixii hore ka heshiisaan. jaalle garsoore, wiilka Cadaawe uma diidin ee isagaa isu diiday, waayo
sidaad aragtay kitaab buu maray wuxuuna saxiixay in uusan uur ii yeelin. midda kale haddii markii aan jilicsanaa ee aan uurka lahaa ama umusha ku jiray oo gargaarka u baahnaa waxay tari lahaa waxbay ahaan lahayd. maanta wiilkii oo weynaaday markii uu arkay ayuu yiri anaa dhalay oo uu damcay in uu hawl yari ku qaato. asli habeennimadii waxay ballan lahaayeen Dr. Axmed oo markii xarbi ay kala tageen ay asli la saaxiibtay. Axmed aad buu ugu bogay una qadarin jiray asli, hase yeeshee xaalku uma najixin sidii Faaduma oo asli iyo Axmed isbartay ay filaysay. asli halkii sano ee ay Axmed la socotay 6 bilood ee ugu dambeysay waxay ku aragtay iimo ay aad u neebayd oo aanay u dulqaadan karin. dad badan oo asli ay siqaaniin ayaa u soo sheegay bilihii ugu horreeyay ee ay saaxiibeen in Axmed si ba'an khamriga u cabo haweenkana ku ibtilaysan yahay. hase yeeshee asli oo u dhalatay deganaan muddo dheer ayay ku qaadatay inay hubiso arrintaas. xaqiiqadii ayayna ka salgaadhay oo waxay soo heshay markhaati cad oo aan la dafiri karin. habeennimadii baa Axmed u yimi asli. markaa kadibna asli waxay bilowday in ay Axmed soo hordhigto akhbaar run ah oo aan caad saarnayn oo ku saabsan fagaaro badan oo uu ku sarqaamay iyo haween badan oo uu raacay, waxaana isaga iyo asli dhex maray doodan. Axmed oo si ixtiraam leh baan isu barannay, ma aynu ahayn laba qof oo isqiyaama. aniga waad isirtay, been baad ii sheegtay. markii aan isbarannay anigu waxaan isla markiiba kuu sheegay in cunugaygu uusan aabe lahayn, innaga oo 2 bilood oo keliya isla soconnay. markii aan kuri ii sheeg haddii aad khamriga cabto waan necabahay, ragga khamriga cabee waad dhaaratay. waxaadan ii sheegtay in arrintaasi tahay been aan waxba ka jirin, aniguna waan ku rumaystay. imikana waxaad ku darsatay naago wadasho. Axmed ma uu dafiri karin dambiyada asli ku cadaysay, waayo runtii ayaa la taabsiyay. hase yeeshee wuxuu bilaabay inuu mowqifkiisa difaaco, wuxuuna yiri asli iga raalli ah waa jirtaa inaan kaa qarshay iimo aan leeyahay, hase yeeshee qiyaamo uu lama jeedin ee markii aan arkay in aadan jeclayn ayaan ka gaabsaday. runtii waa jirtaa marmar in aan sunneeyo khamriga oo aan in yar ka bado, hase yeeshee been baa lagu sheegay. haddii lagu yiri Axmeday oo dhacdhacaya ayaa la arkay. midda kale sidaan kuu bartay aniga iyo haween isma daakhilno, maxaadse asliyey haween kale uga masayraysaa adaa rasmigii ahayd. Axmedow waa ilaahay mahadii haddii aad dembigaagii qiratay ama kaba kacab ama koob kacab. mar haddii aad khamriye cab tahay aniga waad iga dhimatay. intaan noolahayna la oran maayo ninkii asli oo sarqaan ah oo haweenka iyo ilmuhu ku maadaysanayaan ayaa la arkay. mana inkiri kartid oo dadkii goobjooga ahaa ayaan kaa horkeenaya in dhowr habeen adoo sarqaan ah baarliido lagaa soo jiiday. waxaan kaloo kuu sheegayaa in aanan ogolayn in layla kaa qaybsado, sida adiguba aadan raalli uga noqoteen in aan habeen walba nin hor leh wado. baanan aniguna raalli uga ahayn haweenka aad isku bedelayso. Dr. Axmed uu ka xanaaqay erayadii asli, wuxuuna yiri asli anigu cunug aan aabe lahayn baan kugu qaatay, adiguna khamri baad cabtaa iyo naagaad wadataa ayaad sabab iiga dhigaysaa. aad baan uga xumahay Axmed oo fiiradaada gaaban, waan iskala weynahay halka aan kula joogo. malaha waxaad istiri asli cunug aan aabe lahayn haddii ay wadato wax kasta oo xun dusha ayay u raranaysaa. sorry ma yihi anigu qof isnacday, umana dul qaadanayo wixii u daran mustaqbalkayga. dabeecadahan kugu arkayna maaha kuwa ay naftaydu aqbali karto. Axmed markii uu arkay in asli kacsan tahay ayuu isku dayay inuu dejiyo, wuxuuna yiri asli shaydaanka iska naar, hubsiimo hal baa la siistaa. 1 sano ayaan wada soconnay, weligayna qadaf iga tirsan maysid. iminkana daacadnimadii iyo wanaagii aan ku wada soconnay yaynaan carqaladayn ee halkiisii aan ka sii wadno. Axmed muddadii ay asli wada socdeen wuxuu isku dayay inaan iimihiisa asli dareemin. runtii Axmed wuxuu hubsaday in fankii Faadumo asli faaninaysay uu run ahaa, mana uu filaynin gabdhaha maanta jooga
asli oo kale laga dhexeli karo marnaba ma doonayn in ay asli kala tagaan wuxuuna ku talo jiray inuu la aqal galo 6 bilood kadib asli markii ay daristay dhaliilihii Axmed waxay goosatay inay kala tagaan hase yeeshee intii aanay arrintaas ku dhaqaaqin waxay goosatay inay la tashato Faadumo oo markii ay iyada iyo Axmed isbarteen ku adkaysay inay u soo sheegto haddii iyada iyo Axmed qoonsimaad ka dhexdhaco intaanay kala boodin asli goor casar liiq ah ayay u timid Faadumo waxayna min bilow ilaa dhammaad u wareysay waxyaabihii ay kala kulantay Axmed iyo hadalladii dhexmaray iyo wixii ay isla soo mareen asli waxay u sheegtay Faadumo inaanay Axmed ku arag wanaagii lagu tilmaamay waxayna intaa ugu dartay inaanay ku haysan tixgelin aadannimo oo habeenkay ugu jirto uu wuxuu doono kula hadlo Faadumo iyo asli waxaa dhex maray hadalladan asli iyo miskiinsanida maxaad intaas oo dhan la aamusay oo u qarsanaysay soonigii ii soo sheeg kugu iri ma aha eedo inaad ila yaabtid ayaan ka cabsaday dadkuna yacambaareeyo oo naag xun ii maleeyo waayo iyadoo xarbi aan kala tagnay misaana haddii bilihii u horreeyay aan Axmed kala tagno anaa dembiga la isaari lahaa asli imka maxaad damacsan tahay eedo ninkaas Axmed la yiraahdo waa hore ayaan ka xalool goostay ee dartaa ayaanu la socday iminkana waxa niyad ah uma hayo waxaanan doonayaa inaad iga ogolaatid inaan kala harno asli waxba kama qaban inaad kala hadhaan haddii dabcigeeni iskeeni waayay midda kale waan ka xumahay waayo haddii Axmed aan ku aqoon lahaa falalka aad ii sheegtay kugulama taliyeen inaad wada socotaan Axmed intiisa fiican ayaan bartay ee xumaantiisa hoos uguma dhaadhicin asli Axmed fikradaas ma kula qaba ma yeedo xalay markii aan murmaynay wuxuu ii sheegay inuu labadiisa indhood iga jecel yahay oo asli sidee baan ku qaarijinayna hadduu weli ku jecel yahay eedo aniga iida igu halle waxaan ballan kugu qaaday isagoo raalli ah inaan diro oo maxaad ka oranaysaa iska daaduga aan qaan waxaan ku oran doonaa asli waxay ku soo noqotay gurigeedii muddo saacad ah ayaana ka hadsan markii ay Axmed ballansanaayeen asli waxay ka fakaraysay waxay ku oran lahayd marka uu yimaado waxayna bilowday inay isku aadiso ereyo ay islahayd waa qancin karaan isaga iyo iyada kala tagooda waxaana maskaxdeeda ku soo dhacay in ay runta u sheegto waayo asli aad iyo aad ay u necbay beenta iyo asraarka albaabkii ayaa la soo garaacay waxaana furay wiilkeedii Maxamed Yare isagoo ordaya ayuuna intuu asli u yimid hooyo adeer Axmed ayaa yimid nacnacaan ay siiyay sidii caadadu ahaan jirtay Axmed kama helin asli muqaabiladii uga bartay iyo bashaashnimadii lagu yaqaan wuxuuna gartay oo fahmay in isbedel jiro wuxuuna ku yiri intaasi kadib maxaa dhacay la soo qaybteena xigta qaybteenan maanta shaqadana waxaa qoray Dr. Cabdilaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag annagoo ah bahda digaagna waan idin la wadaagnay